halka ka sii shaqada haysid inta kadib maanta waxaan wasaaradda arrimaha gudaha iyo degmada Buurtinle maamulka degmada Buurtinle waxa farxadna waa inaan soo booqano wadada TBB Galxamur Buurtinle Buubi corridor oo runtii shaqo aad iyo aad muhiim ah laga qabtay aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta kormeerno shaqada laga qabtay feeski koobaad oo aad iyo aad u qurux badan runtii wadadan muhiim ayay u tahay aad iyo aad muhiim waxay ugu tahay isu socodka bulshada maadaama aan ognahay muhiimadda hadda ay leedahay dekada Garaacad oo hadda furmatay kaabayaasha dhaqaalaha ugu waaweyn uguna noqon doona insha Allah geeska Afrika muhiim u noqon doona oo Soomaali oo dhan iyo Afrikaba ay hadda rabaan inay maal gashadaan bay muhiim u tahay runtii isu socodkeedu waxay fududeyn doontaa in bulshada iyo deegaamada u dhaxeeya ilaa Galxamur ilaa iyo Buubi ilaa Garaacad ay si fudud runtii ay u isticmaalaan dekada ayagoo halka ka dhoofinaya badeecadaha kala duwan iyo xoolaha iyo waxa la wixii wax soo saarka dalka ah taas oo runtii u fududeyn doonta intii waqtiga badan lagu qaadan jiray in waqti kooban ay ku socdaan isu socodka gaadiidka iyo badeecadaha iyo dhammaan waxa ka soo degaya iyo waxa ka baxayaba dekada runtii waxaan rajaynayaa insha Allah hadii waxaan aad u bogaadinayaa in shaqada dhiman ee feeska labaad la dardar geliyo lagana wada qayb qaato qurux aad u weyn baan ku aragnay maanta markaan halkaan u isticmaalnay droneska iyo diyaaradaha aan kor ka sawirnay runtii ana wada arki doontaan markaas waxaan aad iyo aad maaragtay ugu mahad celinayaa dhammaan inta ka qayb qaadatay waxaan ku leenahay jasaakumullahu khayr waa ajir iyo maaragtay sadaqatul jaariya qof kasta waxa uu la baxay haddana waxaan rajaynayaa feeskan labaad in la dardar geliyo oo si toos ah wadadii ay u dhameystirmato feeska labaad ayna hawl gasho hadii la yiraahdo marka waxaan rabnaa hadda mar hore ayay bilaabatay dekada Garaacad haday ahaan lahayd shamiitada iyo waxba hadda ka soo geeyay baabuurta weyn oo maraysa runtii ayadoo waliba wadadii ay tan iyo tii wadaagsan ba aysan wali dhameystirnayn haddana marka fiirisid transportation iyo baabuurta meesha martay waxa dareemaysaa in ila waaweyn oo dhaqaale oo kaabayaal ay muhiim ay u tahay waan aad been u fududahay inay ku xirmato laamiga dheer marka dhamaantiin waxaan idinku bogaadinayaa oo idinku baraarujinayaa ku wacyigelinayaa inaad ka qayb qaadataan sida hore baa uga qayb qaateen feeska labaad dawladuna dabcan mar walba diyaar ayay la tahay runtii in ay haday qalab noqon lahayd haday taageero farsamo iyo technical noqon lahayd inay ka qayb qaadato waxaanu halkan oo ah meel kamid ah meelaha ay ka socoto dhismaha wadada GBB gaar ahaan qaybta isku xirta Buurtinle iyo Buubi baanu maanta halkan waxaanu ku soo gaaray kormeer indhayn iyo qiimeyn xaaladda wadada ah wafdi isugu jira uu hogaaminayo gudoomiyaha degmada Buurtinle iyo team farsamo oo kamid ah wasaaradda oo ka socda wasaaradda arrimaha gudaha waxaanu u kuurgalaynay xaaladda wadada maadaama wajiga koowaad ee wadadan uu soo ilaaday haddana loo leeyahay sidii loo bilaabi lahaa wajiga labaad ee dhismaha wadada waxa la socotaan wadadani inay sanadkii la soo dhaafay ay hawsheedu si dardar leh halkan uga bilaabatay runtiina shaqo fiican laga qabtay iyadoo ay soo dhamaatay feeskii koowaad oo ah daraasadda iyo isugu jirta wadada in la toosiyo waxa hadda diyaar ah warbixintii iyo daraasadii lagu sameeyay xog meesha la yiraahdo wadadan oo aan rajaynayno inaan dhawaanahan soo bandhigno hadii Ilaahay idmo lana bilaabo loona guddo sidii loo bilaabi lahaa wajiga labaad ee dhismaha wadada waxa xusid mudan inaynu kulan wada qaadanay hay'adda wadooyinka Puntland aanu kana wada hadalay sidii wadadaas si wada jir ah loogu bilaabi lahaa wajiga labaad hormuudna ay u noqon lahayd hay'adda wadooyinka Puntland ayna ugu darsan lahayd qorshayaasha horumarineed ee dhinaca kaabayaasha dhaqaalaha arintaasna waxaanu safgarad fiican ka gaarnay hay'adda wadooyinka insha Allah waxaan rajaynaynaa annagoo iskaashanayna hay'adda wadooyinka iyo dadka deegaankan inaanu wajiga labaad ee wadada inaanu si dardar ah ku bilaabi doono hadii Ilaahay idmo waxa xusid mudan sidoo kale laba bari ka hor halkan waxaan ku wareejinay gaarigii loogu adeegi lahaa oo loogu gurman lahaa wadada waxaanu ku wareejinay gudiga wadada gacanta ku haya ee odayaasha ah runtii
iyaguna shaqo fiican bay hore u soo qabteen haddana waxay diyaar u yihiin maadaama ay caqabadii iyo casharadii laga bartay dhismihii wajiga koowaad ay ahayd xagga gaadiidka oo safaradu maadaama ay u badnaayeen dhaqaalaha wadadan ku baxaysana ay bixinayeen boqolkiiba 100 dadka deegaanadan ku nool wadadu ay marto una baahna in loo safro dhaqaale laga soo aruuriyo xoolo laga soo aruuriyo waxa caqabad ka jirta xagga gaadiidka caqabadaas ilaahay idinkiis waanu xalinay oo waxa la yiraahdo waxay hadda haystaan gaarigii u diyaar ah waxaana dhawaantan u hawlgali doonaan sida ay u soo aruurin lahaayeen dhaqaalaha ku bixi doona wajiga labaad qaybta kaga aadami doonta dadka deegaanka oo runtii ayagu budhigo u ah shaqadan waxaana ku soo biiri doonta haddii ilaahay idmo qaybtii lixaadka lahayd ee dawladda Puntland ka qaadan lahayd gaar ahaan hay'adda wadooyinka ninkii waxaan rajaynayaa haddii ilaahay idmo waqti dhow in deegaanada ilaa Galxamur ilaa Laascaano ilaa Buurtile inta u dhaxaysa ay ku xirmi doonaan dekada Garaacad si waafaqsan istiraatiijiyadda iyo qorshaha u degsan dhismaha wadadan haddii ilaahay idmo waxaan kormeer shaqo ku soo aalay iyo indhayn wadada Galxamur Buurtile Buubi GBB corridor taas oo dhawaan ka socotay deegaanadan Buurtile hoos yimaada taas oo bulshada reer Buurtile iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed oo isticmaasha wadadan ahmiyad gooni ah iyo dareen gooni ah u lahayd taas oo shaqo fiican oo qurux badan laga qabtay facekeeda koowaad facekaas oo ahaa toosin iyo alignment iyo langooyo ayadana lagu guuleystay khaasatan waliba dhinaca sida boqolkiiba boqol lagu guuleystay waxa way dhinaca Buurtile Buubi dhinaca Buurtile Galxamur boqolkiiba 70 baa shaqada qabsoontay sodanka dhiman waa waxyaalo technical ah baa u dhiman tahay oo la xiriira wadada iyo birta culus oo jidkaas maraysa ayadana insha Allah waxaan rajaynaynaa wasaaradda amniga iyo laamaha amniga iyo cid walba oo qosayso inay nagala shaqeeyaan sidii loo dhameystir lahaa inta dhiman marka koowaad waxaan rabaa inaan meeshaan uga mahad celiyo dhammaan dadkii ka shaqeeyay wadadan facekii hore ama phase 1 oo juhdiga ku baxshay dhaqaalaha ku baxshay tabarta ku baxshay waqtiga ku baxshay oo qareemida ku baxshay aad iyo aad ugu mahad celinayaa oo ugu horeeyo Faqi Cabdinaasir Maxamuud Mire oo ay ku jiraan siyaasiyiinta dawladda ee Puntland oo dhammaan contribution ku darsaday sidoo kale waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa dadka deegaanada u dhaxeeya Galxamur ilaa Buubi oo tuulo walba iyo meel walba oo dad joogan ay qayb ka ahaayeen wajiga hore ee wadada oo alignmentiga ama toosinta ama langooyada ahayd aad iyo aad bay u mahadsan yihiin waxaan leeyahay Ilaahay ajar iyo xasanad aan soo koobi karaa ka siiyo shaqadii baaxadda lahayd iyo muggiya miisaanka lahayd ay soo qabteen hadda waxa loo soo jeestay phase 2 oo ah in wadadan maadaama alignmentiga la sameeyay maadaama toosintii la sameeyay in la sameeyo waxa la yiraahdo carakawadaas laamaha dawladda cid walba ay qosayso waa laga hadlay insha Allah waxaan rajaynayaa phase 2 dawladda Puntland inay door muhiim ah ka qaadato sida uu qorshuhu yahay sida ay ballantu tahay dawladda Puntland khaasatan hay'adda wadooyinka dawladda Puntland inay door muhiim ah ka qaadato carakaaweynta iyo waxa la yiraahdo hagaajinta wadada inta dhiman ama inta isticmaalkeedu hadda uu liito waxaan rajaynaynaa insha Allah dhammaan siyaasiyiinta ganacsatada qurbajoogta dadka muxsiniinta dadka degan miyi iyo magaalo in ay xilli barwaaqo oo nabdoon oo Ilaahay dadka wax siiyay oo Ilaahay qurbadiina haysatay oo naga fayday baa lagu jira in ay ka qayb qaataan wadadana runtii ahmiyad gooni u leh dhammaan ummadda reer Puntland iyo ummadda Soomaaliyeed awal qorshuhu wadada wuxuu ahaa in Galxamur iyo Buurtile iyo Buubi la isku xiro hadda waxa soo baxay phase 3 oo ah in Laascaano iyo Buurtile la isku xiro doona insha Allah hadii la yiraahdo taasna insha Allah hawsheeda ay socoto oo wadada laga soo bilaabi doono dhinaca Laascaano waxaan rajaynaynaa insha Allah wadadan inay noqoto mid najaxda waxaan rajaynaynaa wadadan inay noqoto mid dekada ay dadka reer Puntland muddo badan ay ka shaqeynayeen oo ay ku tiir tacabeereen mid macna u sameeyay inay noqoto baan rajaynaynaa insha Allah oo dekadaas magaceeda iyo maamuuskeeda iyo dhaqaalaheeda iyo inkamkeeda wax badan kor u qaada iyo jiritaankeeda dadkuna ay noqoto marin fiican oo u dhow oo waxa la yiraahdo wax badan oo runtii duruufo badan oo meelo badan ay ka wareegi jireen u sahla insha Allah waxaan rajaynaynaa cid walba muuqaalkan daawata inay insha Allah ay doorkooda qaataan u qareemaan hore loo socodsiiyo phase 1 waa lagu guuleystay phase 2 ay dawladdu qayb ka tahay baa la gelayaa insha Allah